dagaalkii Uhud ka horeeyay wuxuu dagaalkii Badr muslimiintu waxay gaalada ka dileen 70 way ka soo qafaaleen oo Madiina la keenay oo markii dambe qaarna lacag laga qaaday qaarna macallimiina laga dhigo ilmaha waxa li farta bara carabi sa loo qoro 10 arday ayaa loogu dhiibay si ahmiyada cilmiga loo muujiyo kii farta bara ilmaha waa la fasaxay waxa la orod iska tag waa lagu sii daayay marka midleynku waa lama laab waxay tahay 70 maxaabiisa iyo 70 dhimasho ah dad u geysateen hadda idinku Uhud waxa idinku dhacday 70 dhimasho ah laakiin 70 oo la idinka qafaashay ma jirto waa un dhimasho marka hadda la fiiriyo natiijada hadda aad kala joogtaan idinka wali natiijada ku sii leh oo ah dhimashada waad simantiin laakiin idinku waxa dheeraydeen oo ayaga xaqooda gaarsiiseen maxaabiista 70 ka idinku aad ka qabateen aysan ayagu hadda Uhud idinkaga ayna qabanin marka taas horta bal ku qalbi qabooba amiirkooda Abdullah ibn Jubayr yaa wuxuu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam dardaarankiisu wuxuu ahaa idinku meeshan saaraada hana ka soo degina hatta hadaadna aragtaan shimbiraha oo na kala dadafaaya macnaha hadii intina laaya hatta shimbiruhu ay nugu kordhagaayeen hilibkeena cunayaan hatta hanoo soo degin idinku meeshan bal idinku ogyahay soo dardaaran adag ma yana qaaya meesha ugu dambaysa hatta gurmadina kama rabno jooga meeshin way ka diideen waxay ilaahay maya waan degaynaa way degeen waxa ku soo hartay 10 qof meesha konton ay ka ahaayeen oo dhinac walba ay ka taagnaayeen oo kor markii laga fiiriyo meesha looma gali kar ay ahayd 10 ruux hal markay u istaageen maxaba soo harayba gadaalay waxay arkeen mushrikiinta waxay arkeen gadaal oo waxba ka jiri ma saarneen ciidanka mushrikiinta markaas waxa hogaaminay Khalid bin Walid dhinaca kale intuu ka soo wareegtay oo Abdullah ibn Jubayr iyo 10kiisa xaqana ka gadaal uga imaadeen oo ay cagta ku dhufteen asxaabtii oo sii jeedo oo ururinayaan wixii la agabki meesha yaalay wixii laga cararay baa korka looga degay markaas korka markii looga degay inta kama ina filin in laga imaan doono markaas quraanku soo cabiray qof walba meeshii hortiisa ahayd ayuu u booday markaas waxa tusciduuna markaad ordayseen buurta xageeda aad ordayseen hadda jaba markii la tago Madiina la soo booqanay waa la soo booqdaa shuhada Uhud buurtii iyo meeshay ku carareen asxaabtii ayaad arkaysaa halkaas ay mareen waxa tusciduuna wala talwuna ala ahadin والرسول يدعوكم في أخراكم رسولكم وقال إذن كجير إلي عباد الله إيسا النقطة وانت أرديسا أوليه والروح إسويدينا يسنجرين تيور ديسين بلارت تاحسوسنا هذا مركو حالي يقول هو من عند أنفسكم معناها جابكم حدي كسو قاري خلاف كاس عد خلافتين أمر كي النبي يتكسو الدكتين بورتا أيو جابكم حدي كسو قاري بس خلاص كان صوصة محي سمعين آيان نبي قادون ماشان استاقي يرهدو ما كسو تقايان محي يالي جابكي شغي يوغين هذا هبك القرآن عجبني مديسة أنت مركي هدي دونها سود دقين قال هذا اللي قعليو أو اللي جبيه قال هذا يا مركي قال هذا يجبيه ينكذب وحاله ديه كري إن كسود دكتان معهين لكن إنسان الله وش يجيو إنسان الله وش يجو وحاب بليغ أو حال دير إنسان الله وش يجي بمعنى سوى حلو تسي مخالفة الرسول الله خلافه حنون كعيلات هاي إن لا دميارت oo ay noqoto darsi mar dambe loo noqonin soo waxa ku maamulay nin dab hayday lama dhaho qof hadii oo bir oo qaban rabo oo dab ah hadaa tira oo dabkan iska dhaafo ku gubanaysaa waxa laga yaabaa inuu ka diido oo yiraahdo adima inuu kuleel yahay oo markii intuu birti aado uu qabto marka uu qabto marka la hadii la yiraahdo birtan way qabowdahay qabo wayna qabowdahay fiican oo bir kulul ma aha ma u dhawaanayo Soomaaliya waxa ku maamulay oo kale dabkii lagu gubto dambaskiisa laga carraa dab hadaad meel oo dab oo dambas caad u maleeynayay ilaa dhuxula hoos ka yaa kaga jirtay waad ku istaagtay adoon dacs qabin markaas si fiican kuugu dhigtay to kala ka soo mar hadii lagu dhaw dambaskiin meesha uu yaalo dhuxushi hadii laga bixiyo hataa ani dambaskan ma maray leedaysaa maxay waxa xusuusan tahay tii haday ku qabatay marka darsigii lagu tusiyo tijaabo ku xanuujisa mar dambe uma noqonaysid marka sidoo kale aad yeesho darsigaas la